بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن داود الميل والبو آد شوكتان هالكني ومرقات تي في كسر دوادا مركل إيا برنامج كينا فلانقين تحوكتا عالمكا داود الشقيمها يقدرين تناقا مدنو برنامج كينا قضب بدا اينو ديرد كساري دونا هدي الله أود لي أورا لك نقضو حكامي مدحوينها ودنكا تركيغا اردوغان oo qalinka ku duugay wareegto ku saabsan goorta la qabanayo doorashada madaxtinimo ee dalkaasi Iran iyo Saudi Arabia oo ku heshiiyay inay dib u soo celiyaan xiriirkooda iyada oo si weyn arintan loo hadalhayo tani saameyn caynka ay ku yeelan doonta dalalka bariga dhexe barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa sidoo kale daawada barnaamijka waxaan idinku soo gudbin doonaa duqeymo daran oo Ruushka uu geystay Kiev oo ka digtay qatarta gantaale ah oo ku soo wajahan dhankooda marka la soo dhawaada daawada fadlan hadii aad nagu cusubtahay nagu soo biiro channelka subscribe noo saar furo gambalelka si aad u noqoto daawadaheena ugu horeeya mahadsanid barnaamijka ayaynu guda galeynaa madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan ayaa waxa uu saxiixay wareegto madaxweyne oo lagu qabanayo doorashada madaxtinimo ee 14 bisha May ee soo aadan wuxuuna ku dhawaaqay in soo gudbinta waqtiga doorashada ay ku timid rabitaanka shacabka oo ku saleysan dastuurka khudbad uu jeediyay kadib markii uu saxiixay wareegtada madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in qiimeyn ballaaran lagu sameeyay sidii ay doorashada ugu dhici lahayd deegaanadii uu dhulgariirka saameeyay dhinaca kalena Erdogan waxa uu dhaleeciyay hadaladii madaxda mucaaradka la xiriiray dhulgariirka iyo saameyntiisa waxaana uu yiri naxdin iyo waxay muujinaysaa inaysan waxba ka ogeyn xaqiiqada dhibaatada wuxuu intaas ku daray waxay cadeynaysaa isku dayga joogtada ah ee ay ku faafinayaan wararka xanta ah madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay inay jiraan dad isku dayaya in ay ka faa'iideystaan dhulgariirka iyo saameynta uu ku leeyahay xaaladaha siyaasadeed balse taasi aysan saameyn doonin go'aankooda iyo qorshahooda waxa uu carabka ku dhuftay in dawladdiisu ay ka shaqeysay tan iyo saacadihii ugu horeeyay ee dhulgariirka si ay u baadigoobaan una samata bixiyaan una soo kormeeraan magaalooyinka uu ku dhuftay dhulgariirka Erdogan ayaa tilmaamay in dawladdu ay awood u yeelatay inay meesha ka saarto dhibaatadii ka dhalatay dhulgariirka isla markaana ay hal sano ku soo gabagabeyn doonto dhismaha 300,000 oo kun oo guri weli daawada barnaamijka falanqeynta xogta caalamka ayaa daawaneysaan markana aynu eegno heshiiska Iran iyo sidoo kale Sacuudiga wakaalada wararka ee Saudi Arabia ayaa ku dhawaaqday in Riyadh iyo Tehran ay ku heshiiyeen inay dib u soo celiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed ayna dib u furaan labada safaaradood 2 bilood gudahood heshiiska ayaa la gaaray sida ay sheegtay wakaalada kadib wadahadal uu Shiinaha kula yeeshay madaxweyne Xi Jinping wakaalada Saudi Arabia ayaa intaasi ku dartay in wadahadaladan ay ku yimaadeen rabitaan ka yimid Tehran iyo Riyadh oo ku aadan in khilaafka lagu dhameeyo wadahadal iyo diblomaasiyad wakaalada oo soo xiganaysa hadal ka soo baxay Sacuudiga iyo Shiinaha iyo Iranba ayaa lagu sheegay in wasiirada arrimaha dibadda Saudi Arabia iyo Iran ay kulmi doonaan si ay isku dhaafsadaan safiirada ayna ka wada hadli doonaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal waxaana ay tilmaameen in Sacuudiga iyo Iran ay isku afkarteen in la dhaqaajiyo heshiiska iskaashiga amniga ee u dhaxeeya waxayna sidoo kale ku heshiiyeen in la ixtiraamo madaxbannaanida wadamada oo aan lagu faragelin arrimahooda gudaha wariyaha Al Jazeera ayaa sheegay in warkan ku saabsan soo celinta xiriirka Tehran iyo Riyadh ay ku saxiixeen magaalada Beijing wakiilo ka kala socda Iran Saudi Arabia iyo Shiinaha la taliyaha amniga qaranka Saudi Arabia ayaa sheegay in soo dhaweynta hindisaha Shiinaha ay ka timid habka loo hoggaansamo mabaadi'da daris wanaaga iyo kor u qaadista amniga geesta kale wasiirka arrimaha dibadda Iran Hussein Amir Abdullahian ayaa sheegay in soo laabashada xiriirka Iran iyo Saudi Arabia ay fursad weyn u tahay gobolka iyo caalamka islaamka waxa uu yiri siyaasadda daris wanaaga waa udub dhexaad waxaan sii wadeynaa inaan ka shaqeyno tallaabooyin badan oo heer gobol xogayaha guud ee golaha sare ee amniga qaranka Iran Ali Shamkhani ayaa sidoo kale tixgeliyay in soo noqoshada xiriirka Riyadh iyo Tehran ay kor u qaadi doonto xasiloonida iyo amniga gobolka wuxuuna sidoo kale ku ammaanay Shiinaha doorka ay ku leedahay dib u dhiska xiriirka diblomaasiyadeed ee Riyadh waxa uu intaas ku daray waxaan wada hadallo badan la yeeshay la taliyaha amniga qaranka Sacuudiga ee Shiinaha tan iyo Isniintii la soo dhaafay wuxuuna tilmaamay in dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Sacuudiga ay sare u qaadayso xasiloonida gobolka iyo amniga Ali Shamkhani waxa uu yiri sidoo kale sida uu dhigayo heshiiska safiirada ayaa la isku weedaarsan doonaa Tehran iyo Riyadh 2 bilood gudahood dhankeedana wasaaradda arrimaha dibadda Iraq ayaa iyana tiri waxaan soo dhaweynaynaa heshiiska Sacuudiga iyo Iran in la bilaabo bog cusub oo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal dhankeedana wasaaradda arrimaha dibadda Oman waxa ay tiri waxaan rajaynaynaa in dib u soo celinta xiriirka Sacuudiga iyo Iran ay ka qayb qaadan doonto xoojinta tiirarka amniga iyo xasiloonida gobolka wakaalada wararka ee Reuters oo soo xiganaysa diblomaasiga sare ee Shiinaha Wang Yi kadib markii uu sheegay in wadahadalada Sacuudiga iyo Iran ee ka dhacay magaalada Beijing ay yihiin guul nabadeed isagoo ku sugan Washington afayeenka aqalka cad ayaa yiri waan soo dhaweynaynaa dadaal kasta oo gacan ka geysanaya soo afjaridda dagaalka Yemen iyo yareynta xiisadda bariga dhexe
wuxuuna carabka ku adkeeyay in Washington ay ka warqabto wararka sheegaya in uu dib u soo laabtay xiriirkii diblomaasiyadeed ee Iran iyo Sacuudiga. Riyadh iyo Tehran ayaa bilaabay wadahadalo toos ah tan iyo 2021 iyaga oo isku dayay inay xakameeyaan xiisadda u dhaxaysa, waxaana bishii Abriil ee la soo dhaafay ay labada dhinac ku yeesheen Ciraaq wareegii shanaad ee wadahadaladooda. ugu dambeyntiina Kiev ayaa cambaareysay duqeymaha ba'an ee gantaalada Ruushka ee lala beegsaday magaalooyinka Ukraine, waxayna ballan qaaday inay si adag isaga caabin doonto. dhanka kalena ciidamada Ruushka ee Wagner ayaa ku dhawaaqay in dagaallo culus ay ku qaadeen xaafadaha bariga Bakhmut ka hor inta aysan la wareegin. saraakiisha guud ee dalka Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay shalay ilaa 95 gantaal ku duqeeyeen dhowr goobood oo dalkaasi ka tirsan, iyagoo ka digay khatarta gantaalada oo aad u sareysa. waxayna tilmaameen inay sii socdaan isku dayga lagu go'doominayo magaalada Bakhmut. waxay intaasi ku dareen in jimcihii askartooda ay iska caabiyaan in ka badan 100 weerar 24 saac la soo dhaafay. magaalada Bakhmut oo ah magaalo ay bartilmaameed u ahayd ciidamada Ruushka tan iyo bishii Agoosto. ciidamada Ukraine ayaa sheegay inay la kulmeen 10 weerar oo cusub oo Ruushku soo qaaday, kuwaasoo lala beegsaday xarumaha kaabayaasha, gaar ahaan gobolka lagu magacaabo Zaporizhzhia ee koonfurta bari ee wadanka. taliska guud ayaa sheegay in ciidamadoodu ay qaadeen 13 weerar oo lala beegsaday 6 goobood oo ay ku sugnaayeen ciidamada Ruushka iyo baqarada rasaasta. geesta kale, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay rideen in ka badan 80 gantaal oo ay ku bartilmaameedsanayeen bariga ilaa galbeedka Ukraine iyo waqooyiga ilaa koonfurta. wasaaraddan ayaa ku micnaysay in duqeyntaasi ay uga argoosanayeen waxa ay ku sheegtay howlgal gudaha ah oo ay kooxo hubeysan oo Ukraine ahi toddobaadkii hore ka fuliyeen gobolka Bryansk ee ku yaala xadka, kaasoo sababay dhimashada ilaa 2 qof. Kiev ayaa beenisay eedeymaha Ruushka, waxayna sheegtay in waxa dhacay laga yaabo inay ka dhalatay iskoorimaad gudaha ah oo ka dhacay Ruushka. Moscow waxay sheegtay in weeraradeeda gantaalada ay burburiyeen goobihii ay ku sugnaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine, ayna fashiliyeen howlgalladii hubka loogu wareejinayay Ukraine. ciidamada gaarka ah ee Ruushka Wagner ayaa ku dhawaaqay inay xoojiyeen fariisimaha ay ku leeyihiin magaalada Bakhmut ee gobolka Donetsk ee bariga Ukraine, waxayna isla mar ahaantaana bilaabeen olole shaqaale qoris ah ama ciidan qoris oo ballaaran oo Ruushka ka socda. maleeshiyada ayaa sheegatay in saacadihii la soo dhaafay ay dagaallo culus la galeen ciidamada Ukraine, kulana galeen deegaanada ay ka taliyaan ee bariga Bakhmut. wakaalada wararka ee Ruushka Van ayaa baahisay muuqaal ay ku sheegtay in uu muujinayo dagaalyahanada Wagner oo dhex wareegaya xaafadaha Zabakhmutka oo 2 maalmood ka hor ay qabsadeen, taasoo ku taala bariga Bakhmut. muuqaalkan ayaa muujinayay taangiyo iyo baabuur ay Ukraine leedahay oo la burburiyay marka lagu daro gaari nooca gaashaaman Mareykanka ee M113 kaas oo lagu burburiyay dagaalada. hogaamiyaha iyo asaasaha ciidamada gaarka ee Wagner Group Yevgeny ayaa waxa uu jimcihii ku dhawaaqay furitaanka xarumo lagu qorayo ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah oo 42 magaalo oo Ruushka si ay uga dagaalamaan wadanka Ukraine. ilaa hadda ciidamada Wagner oo taageero ka helaya ciidamada Ruushka uma aysan suuragelin inay si buuxda u hareereeyaan magaalada Bakhmut, maadaama ay weli jirto wado ay sahayda ka helayaan ciidamada Ukraine ee ku taala galbeedka magaalada. daawada aragtida fadlan qaybta hoose commentiga noogu mahadsanid. barnaamijka falanqeynta xogta caalamka ka daawanaysan Markhaati TV qaybta wanaga intaas barnaamijkana kan xigeentan ku kulmayno nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.